sidoo kale goluhu wuxuu mar kale isla qaatay in ciribtirka kooxaha khawaarijta la dardargeliyo la iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qaybaha kala duwan ee dalka. afar qodobo kale goluhu wuxuu isla gartay in guddi ka kooban xubno ka mid ah golaha wada tashiga qaran oo kala ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweyne Cali Cabdilaahi Xuseen Cali Guudlaawe loo diro dowladda Puntland si ay doorkooda uga qaataan wada hadallada masiiriga u ah dhamaystirka dowlad dhiska dalka. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa wadajirka iyo isku duubnida ay muujiyeen culimada Soomaaliyeed. Goluhu wuxuu bogaadinayaa dadaalka hagar la'aanta ah oo ay culimadu ka sameeyeen la dagaalanka xagjirka iyo fadwadii sida wadajirka ah ay uga soo saareen shirweynihii qaran ee culimada Soomaaliyeed ee taariikhiga ahaa. Goluhu wuxuu bogaadinayaa baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilkaasnimadoodii iyo dadaaladoodii ku aadanaa meelmarinta shuruucyo lafdhabar u ah dhamaystirka dowlad dhiska dalka muddo aad u kooban gudaheed. Goluhu wuxuu si gaar ah u amaanayaa ciidamada qalabka sida ee geesiyiinta ah, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo bulshada Soomaaliyeed halganka iyo doorka ay ka qaateen la dagaalanka joogtada ah iyo ciribtirka khawaarijta shabaab oo dhibaato ba'an ku haya dalka iyo dadka. Goluhu wuxuu baaq nabadeed u dirayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaano wuxuuna cambaareynayaa cid kasta oo qayb ka ah horinta dagaalka iyo sii socoshada colaadda. Goluhu wuxuu soo jeedinayaa wadada kaliya ee xalka mushkiladda taagan inay tahay wada hadal. Dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay mar walba kaalinteeda ka qaadato nabadeynta. Goluhu wuxuu si gaar ah u bogaadinayaa shacabka iyo dowladaha Galmudug iyo Hirshabeelle guulaha waaweyn ee ay ka gaareen la dagaalanka khawaarijta iyo dib u xoreynta deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Goluhu wuxuu u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, xukuumaddiisa iyo shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida sharafta leh ee ay u soo dhaweeyeen waftigii ballaarnaa ee labada heer dowladda una martigeliyeen shirka golaha wada tashiga qaran. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MPIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.